maamulka gobolka Togdheer Salaadiin iyo gudidii loo xilsaaray xalinta shaqaaqadii u dambeysay ka dhacday deegaanka Gobolka ee gobolka Togdheer ayaa maanta go'aamo ka soo saaray goobta uu go'aankani ka dhacay oo ay ku sugnaayeen maamulka gobolka Togdheer Salaadiin laamaha ammaanka odayaasha iyo cuqaasha labada dhinac ee shaqaaqadu dhex martay ayaa halkaas ay gudidu ka akhriyeen go'aamadii laga gaaray daminta colaadaasi runtii waxaan ka cudurdaaranaynaa waqtiga bishii siyaadadan hawsha inaan ka cudurdaaranaynaa sababtoo ah waqti naga lumay ma jiro ee hawsha culeyskeeda lahayd waxa la isu sheeganaya ma ahayn dhiig oo qura ma ahayn waxyaabo badan baa ku xeernaa marka hawl culeyskeeda leh ayay ahayd haddaanu nahay gudida loo saaray dhexdhexaadinta labada beelo ee kor ku xusan waxaanu soo saarnay go'aankan soo socda qodobka dilka marxuumka loo odhan jiray maxamed xuseen cali oo uu dilay gacan ku dhiigli faarax cali ibraahim oo ku xidhan jeelka burco waxaanu ka xukunnay magtaas oo ah 150 halaad oo 100 halaad dhogor yihiin kontonka halaad soo harayna lacag aanu ku qiimaynay $300 oo qashiyo totalkeeduna yahay $15,000 oo iyo 1,000 aasa aana taloga waxay gudidu ka xukuntay $10,000 oo la raacinayo geela dhogorta ah ee ku mudaysan 3 bilood labada dhinac ee shaqaaqadu dhex martay ayaa iyana dhankooda si wada jir u soo dhaweeyay go'aamadaasi gudida waxay soo waanu qaadanay waanu ku maatay waxyaabadan aan isku qanacnay xigaalo wajka waxaan isku qanacnay barwanka ah shirweynaha dawlad iyo shicib iyo salaadiin loo fadhiyo arrin kala dhiibnay yeenahay gacanta taagan marka hore gudoomiyaha bala saabta uu sareeyo taawti ah sida waxa weeye xubka waxaan leeyahay ka kicin aan qaadan farsamooyin waa dhiman anaga beesha saabta doo wadana kuliga loo wajko ragu dawaa laba mid noqonaya in la isu dilo iyo la isu sidaayo qorsho u sameeyno kii wax dilay waynu hayna hadaynu dilanayna waa hayna hadaynu bedelanayna waa hayna kiyaa duunooyo waanu keenay waxaanu anagu leenahay wixii la nagu xukumayada waxaanu qaadanay si aan hadal lahayn oo macaaniya baanu qaadanay Suldaan Yuusuf Cabdi Caawad iyo taliyayaasha laamaha ammaanka ayaa iyana bulshada ugu baaqay ilaalinta nabadgelyada waxaana ugu dambeyntii kulankaasi soo afmeeray barasaabka Togdheer Maxamuud Cali Ramaax oo ku amaanay sida ay labada dhinacba u aqbaleen go'aamadaasi lagu daminayo colaadii yarayd ee dhex martay beelahaasi degdeg ugu baxraa meeshii oo aynu dadka wax gaarsiinaa waxaaynu isla qaadanay waa inaanay guryaheena fadhiisan xukuumaddiina oo gudbinayna waxaan wax leeyahay maxkamadii dadina waynu gelaynaa suldaana dagu celcelis mar hadduu heshiisku soo dhamaaday waa la gelayaa koodii waanay dhammaanaysaa dhan walba khayr filo Xabiib Ciga Xasan Universal TV magaalada Burco.